Assalaamu calaykum. Soo dhowaada walaalaha qaaliga ah. Ma la aqbalayaa salaada qofka daawado filimada xunxun? Jawaabteeda waa mid cajiib ah. Dhammaysa fiidiyowga ilaa dhammaadka. Ka hor inta aan u gudagelin fiidiyowga ama mawduuceenna maanta, aan hal mar ku wada salino nebigeenna Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Qofka muslimka ah uma bannaana daawashada filimaanta xunxun, maxaa yeelay waxay sababtaa qalbi madoobaad iyo inuu qofka hilmaamo Allahii abuuray. Daawashada filimaanta xunxun waxay u keentaa qofka xanuuno ku dhaca qalbiga iyo qofka inuu ka dheeraado xalaasha. Waxyaalaha kale oy sababto ama ay keento waxaa ka mid ah inuu qofka ku dhiirado gogoldhaafka. Allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna amray in aan indhaha laabanno, weliba aan ka laabanno waxyaalaha xaaraanta ah. Allahna wuxuu yidhi, qaala tacaalaa: qul lilmu'miniina yagudduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. qofkii daawado filimaanta xunxun ha u degdega towbada Ilaahay, maxaa yeelay qofkii towbadkeena wuxuu la mid yahay qof aan dembi gelin. Xukunkeeda waa xaaraan, oo waa inuu qofka daawado xaaraan filimaanta xunxun. Salaadiisa waa la aqbalayaa qofkii daawado filimaanta xunxun, laakiin waxaa wanaagsan qofka muslimka ah inuu ka fogaado daawashadooda. Nafsadda qofka dhibaatooyin badan ayay u keentaa. Waxay u sababtaa qofka diiqa ama cariiri, sidoo kale dhanka caafimaadkana dhibaatooyin badan ayay u keentaa, oo qofka waxay ku sababtaa aragga inuu beelo. Sidoo kale qofka waxaa ka yaraata barakada. Waxaan soo gaarnay dhammaadkii fiidiyowga. Haddaad ka heshay, biliis sabskaraabka saaro, gambaleelkana furo. Waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.